jeelkan Burco sida taliyuu sheegay waa run waxaa la dhisay xilliga Ingiriiska maxaabiistu qaadi kara waa yar tahay duruuftaas oo dhan waa duruuf run ah oo xaqiiqa ku salaysan waxaana ay tahay aanu ka duulay ee jeelkan aanu u dhisay mashruucan aanu maxaa xukuumaddu u fulisay mashruucan xabsiga magaalada Burco oo halkan inuu dhex taaganay waxa ku baxaya 1 milyan iyo 500 oo kun oo dollar lacag u dhiganta Somaliland shillings dollarna inta ka qayb baa la bixiyay qaybta kalena hadda waa la bixinayaa shirkadiina gacanta lagu hayaa ma jiro jeel istaagay waxaanu beeninaynaa dhismo istaagay inaanu jirin waa u mahadnaqaynaa shirkadda Albaraka oo runtii xoog saartay waa shirkad caan ku ah dhismayaasha waana ka socdaa waxaan maqlayay maalmo dhaweyto iyadoo la leeyahay jeelka waa istaagay xukuumadda madaxweyne Axmed Siinaayo meel la dhagax ma dhigno haddaanu dhignana waanu dhisnaa mashruucaanu gacanta u qaadnayna waa dhamaystiraa waxaanu rajaynaynaa inuu jeelkani dhamaado wax weynna ka furto nidaamka garsoorka iyo cadaaladda ee gobolka aad iyo aad baa mahadsantahay miisaaniyadda qaranka laga sameeyay